imtixaanaadka sanad dugsiyeedka 2017-2018 ayaa waxa ay si toos kaga bilaawdeen dugsiyada waxbarasho ee ku yaala magaalada Jowhar ee xarunta maamulka Hirshabelle. imtixaanaadka sanad dugsiyeedka ayaa saaki waxa uu dareertay ardaydii ugu badneed abid ee wax ka barata dugsiyada ku yaala magaalada Jowhar ee xarunta maamulka Hirshabelle. halkani waa dugsiga hoose dhexe iyo sare ee Horseed, waxaana wax ka barta arday badan kuwaasi oo u kala baxa fasalada dugsiyada sare iyo dugsiyada hoose. waxa ayna ardayda imtixaanaadku saaki ay sheegeen inay ugu soo diyaariyeen sida ugu habboon, waxaana sidoo kale la sheekaystay qeybaha kala duwan ee ardayda iyo macallimiinta dugsiga hoose dhexe sare iyo Horseed. magacaygu waa Yusuf Maxamed Axmed, waxaan dhigtaa dugsiga hoose dhexe sare ee Horseed, waxaan ahay fasalka saddexaad. waxaan maanta waxaan isku diyaarinaynaa inaan galno imtixaankii waan galnay maasha Allah. waxaan imanka noo soo idlaaday maadada lagu magacaabo tarbiyo. waxaan imanka isku diyaarinaynaa inaan si galno maadada xigta ee suugaan. waxaan rajaynayaa inaan buundo fiican aan ka keeno imtixaanka. waa Mahad Xaaji Xuseen, iskoolka sare ee Horseed ee xaafadda Horseed. maanta waxaan aad imtixaanka teeramka koowaad ayaan galnay. waa xiisa ugu horeysa waa tarbiyo islaam iyo xiisa labaadna waa suudaan. maalmahan ayaan diyaarinaynay imtixaanka isbuuca la soo dhaafay. waxaan rajaynayaa inaan ka gaaro heer sare. wanda ahaan wallahi waxaan rajaynayaa inaan boqol aan keeno ayaan aad ku rajaynayaa. sidoo kale waxaan aad aan soo rajaynayaa sanaanta. magacay waa Farxi Cabdiqaadir Aweys. walaa maanta aad iyo aad ayaan u faraxsanahay maxaa yeelay furitaanka isboortiga iyo diyaariskiisa waan ku fadhinaa. marka maanta waxaan rajaynayaa hogaanka maadadaas aad iyo aad soo diyaarinta imtixaanka goorma bilowday? isbuucii hore fasaxay sabtidii ilaa sabtigan diyaarsanahay. bismillaahi raxmaani raxiim. maanta ay taariikhdu ku beegan tahay 9 bisha Diseembar 2018 waxaa inoo bilowday imtixaankii teeramka sanad dugsiyeedka 2017-2018. sidoo kale waxaan rajaynaynaa imtixaankaasina inuu nagu soo gabagabo ama nagu soo dhammaado si nabad ah iyo si heer sare ah. ardayda cabirka imtixaanka u fadhiistay 99% way soo xaadirtay. waxaan dhihi karnaa 2 iyo 1 oo ka maqan oo macnaha markaasay cudurdaar ama xanuun iyo waxyaabahaas ay u maqan waana inta kale 99% imtixaanka way noo fadhisaa alxamdulillah. maanta waxaan imtixaankan ku bilownay maadaama aan islaam aan nahay tarbiyatul islaamiya. dhanka kale ardayda qaybtooda oo aan la sheekaystay ayaa ii sheegay xilli aan wada kaftamaynay waxa ay ka aaminsan yihiin waxa loo yaqaan qishka ama imtixaanka oo si hoose loo soo diyaarsado. imtixaanka run ahaantii waa iska shid badan yahay. arday waxaa jiro qash ay sameynayaan la dadka qaar waxay dhahaan alqashul xaraam walow kaan laga maarmaan. anaga marka sidaan ku nahnay arday qashka waan aaminsanahay. والله قشك waxaan ka aaminsanahay inuu wax sheexan laakiin marka qaarkeed oo lama amaan yahay. walaa qashka oo fiican maahay qashka waxaa ku fiican dhanka kale waxaa magaalada Jowhar ka soconaya diyaar garowga ay wadaan qayb ka mid ah ardayda dugsiyada magaalada ku yaala kuwaasi oo imtixaankooda uu dib u dhacay. عبدالفتاح أحمد معلو عبدالفتاح زكي تلفزيون كعالمي قاهي بولشو جوهر.